السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسو دواada shabakada Kobciya Media iyo Ustaad Injineer Xasan Maxamed Faraqle buugii Microsoft Excel cashirkiisa 8aad maanta waxaanu baran doonaa function ka duwan intaynu soo aragnay koob waxa ugu horeynaya function kan baran doono function ka loo yaqaano power aan dhahay product waa isku dhufasho okay product ayaa dhahaysaa 30,2 haye 3 lagu dhuftay 2 6 baa noo soo baxaysa waa product ku celiyo product ayaad qoraysaa 9 marka ku dhufanaysid ayaad ku daraysaa 4 waxa ku soo baxaya marka bracket xidid ayaa fiirinaysaa 36 kaas waa product okay power equal power waa marka xisaabta aad jibaarana saaraysid power marka dhaxdii equal power bracket ayaa furaysaa okay 10 power 2 marka dhaxdid bracket ku xidid 100 taas kugu soo baxaysa okay another mid kale power okay marka aan dhaho 8 power 3 waa tira badan aad ku soo baxda tan waxa ku soo baxaya waa ka 68,000 waa ka 68 milyan 472 ayuu noqonayaa power okay maxaa ku xigaya square root ka okay equal sqrt waa square root ki dan hadhoodii bracket ay furaysaa square root waa maxay xidid ayaad ka saaraysaa mesela 64 xididka aad ka saadid waxa ku soo baxaya 8 ba ku soo baxaya marka ku noqo equal sqrt okay -4 balka saar -4 maka bixi kana aynu aragno bracket ku xir num ayuu noo soo qoray it means negative number negative kama baxo waxa loo yaqaano xidid kama baxo halka marka waxaan baranay power key waxaan baranay product key waxaan baranay square root key okay sidaas ayaa marka loogu isticmaali karaa functions ka kala duwan waxa loo yaqaano Excel ka aad ba mahadsantihiin la socda cashirka 9aad insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh